بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan iyo adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sida nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah ee ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah dhul bannaan oo ah meesha hadda aan kaamirada ku hayno geed yahuudka oo ka baxaayo dhinacaana waa qaybta dambe ee dhulka gurigan filada ah ayuu ku dhagan yahay dhankaas kalena waxaa uga dhagan jeengadaas bacweynaha ah waa booskan u dhaxeeya waxaa ka baxaya geed yahuud iyo tiitiin camal wadadan kalena waa uu haystaa oo wado weyn ah inaad si fiican u aragtaan ayaa rajeynaya dhinacaas kale baallaha uu ku mudan yahay oo kasoo bilaabanaya guriga sarta ah waa kaasa booskana wuxuu u dhaxeeyaa gurigaas iyo gurigan kale ee dadka hortaa taagan yihiin meeshaana waa wadadii soo dhawaada walaalayaal waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan haddii aan ku bilaabo dhulka iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho waxa uu uga sii yaalaa xaafadda ama aan dhahay degmada hilwaana waxa uu uga sii yaalaa xaafadda alcadaala oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee degmada hilwaa runtii ah xaafad ballaaran oo ah xaafadihii hore ee magaalada muqdisho waa xaafad camiran oo ilaa xilligii siyaad barre la deganaay waa ujeedaan xaafadda sida u dhisan tahay weliba booskan wuxuu usii dhow yahay meesha loo yaqaano ceelka caligees oo caan ka ah degmada hirwaa gaar ahaan soonahan alcadaala iyo waxar cadde walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka dhulkan iibka ah waxa uu ku fadhiyaa 15 lagu dhuftay 15 ama kuundishe barkuundishe hadba sidaa u taqaano dhulkan wejiga horena waxa uu noqonayaa 15 mitir dhirirkana sidoo kale waxa uu noqonayaa 15 mitir waa cabir oo waasac ah ballaaran guri filla ah oo qurux badan oo iska dhexdhexaad ah laga dhisi karo fillo aad u ballaaranna ma noqonayo fillo yarna ma noqonayo marka waxaa dhihi karnaa waa cabir qiyaas ah sidii la rabo ah guri sidii loogu talagalay ah waxaa qaban karto ilaa 6 qol 7 qol guri ah oo famil ballaaran si fiican ugu filan marka dhanka cabirka waa heer sare walaalayaal haddii aan ka hadlo jihooyinkiisa ama meesha u jeesanayo booskani waa galbeed ujeed haddii aan ka hadlo jidadkiisa waa boos haljidle ah marka waxaa dhahaynaa waa boos haljidle ah oo galbeed ujeed ah xaafad camiran oo si fiican u dhisan ku yaala deegaan fiican leh jidad waaweyn leh wadada guriga hormarta oo aragtaan waa wado weyn oo maasha Allah wadada hadda ujeedaan ayaa hormarta haddii aan ka hadlo walaalayaal dukumentiga oo dhulkaani leeyahay dukumentigiisa waa nadiif waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre warqadaha oo dhan way u dhameystiran yihiin wax ka maqan ma laha marka soo dhawaada laga faa'iideysto walaalayaal dhul waxaa laga gataa sida mar walba idin sheego dukumenti
iyo sidoo kale jid. Dhulkan iibka ahna intaba waa uu isku darsada waxyaabo kaloo badan oo ku fiican yahay oo leeyahayna waad u jeedaan. sidoo kale laamiga jidka jayga ah ee Alcadaala kama dheera. jidkaas jayga ahna waxaa mustaqbalka dhow la rajeynayaa in laami la saaro. dhulka jidka wuxuu ahaa jid oo bacaad ah, hadda laakiin jay ayaa laga dhigay. waxaana kusoo xigto in laami la saaro, maxaa yeele waa waddo halbowle u ah degmada Hilwaa oo haddaba uu saaran yahay gaadiid beel ah oo isticmaala oo dadka deegaankan iyo magaalada qaybaheeda kale isku xira. marka runtii booskani waxa uu ku yaalaa meel aad iyo aad u fiican. marka kusoo dhawaada, kusoo yaaca. ugu dambeyntii haddii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo dhulkan iibka ah, walaalayaal, dhulkan iibka ah waxaa lagu rabaa 20,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah oo macal dalaal ah. runtii waa qiimo macquul ah. 20,000 lacag hadda aad u badan ma aha, haddana haddii ay fiirisid qiimaha oo dhulkan u qalmo, lacagtaasi waxaa dhihi karnaa waa u qalmaa. maxaa yeele waa dhul dukumentigiisa Maxamed Siyaad Barre yahay, dukumenti nadiif ah leh, jidad waaweyn leh, haddana guryahan filooyinka iyo deegaankan quruxda badan leh ay ku dhegdhegan yihiin. marka waa fursad. iyo weliba lacagtaas 20,000 ah iyo heshiis wixii macquul ah in laga farigeliyo ayaa diyaar loo yahay. insha allahu tacaala shirkad Dallis Real Estate haddii aan nahay waxaa diyaar u nahay inaan soo tusino dhulkan. haddii aad ku qanacdaanne nootaayo alle midda aad jeceshihiin aan idinkaga wareejino. haddii aan ka hadlo sidoo kale waxyaabaha dhulkani ka anfici karo, walaalayaal, dhulkan wuxuu idinka anfici karaa kowga hore deegaan. maxaa yeele waa deegaan qurux badan oo camiran sida u jeedaan. waxaana ka helaysaa dhammaan adeegyada aad u baahan tahay. gaadiidkii magaalada qaybaheeda kale kugu xiri lahaa. suuq haddaa u baahan tahay, suuq Hurwaa, Alcadaala suuq ay leedahay. waxbarashadii, iskuullo, waxaasoo dhan waa ka helaysaa. caafimaadkii, isbitaallo waa ka helaysaa. marka deegaan aad ayuu ugu fiican yahay. sidoo kale waa dhul cusub ah oo hawo fiican leh. waxaa kale uu ku fiican yahay ama dhulkan uu kaa anfici karaa, waa dhul maalgashiga ku fiican. maxaa yeele xaafadan hadda ayay dib usoo dhismaysaa, ay soo kobcaysaa. waa xaafadihii dagaaladii sukeeye ee civil warka ay saameeyeen, laakiin hadda dib u dhis weyn uu ku socdo. marka waxaa suuragal ah sanadada dhow in qiimaha oo kor u kaco, waa markaas maalgashi ahaan oo kaa anfaco. sidoo kale haddii aad dhisatid ood kireysatid waa dhul ku fiican. laamiga hadda oo la rajeynaya jidka Alcadaala haddii la saarana dhulkan automatic kor ayuu aadayaa. marka laga faa'iideysto. haddii aan si kale kugu soo celiyo, waa boos 15 ah Barkuundisho ku yaala xaafadda Alcadaala, degmada Hilwaa, magaalada Muqdisho, galbeed ujeed ah, haljidle ah, dukumentigiisa uu nadiif yahay, Maxamed Siyaad Barre. qiimaha lagu rabo 20,000 doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah. soo dhawaada walaalayaal. ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino. insha allahu tacaala waa mahadsantihiin mar kale. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.